sidaan la socono waxaa maalintii bishu ay ahayd 30 Agoosto reerkoodii ka ambaday wiil lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Warsame taasoo laga baafiyay TV-ga caalamiga Royal. haddaba markii TV-ga Royal laga baafiyay inankan ayaa waxa ay telefoon naga soo gaarayeen Soomaalida meel kasta ay ka joogaan caalamka taasoo ay ka walwalsanayeen xaaladda inankan. haddaba waxaa noo farxad ah inaan u sheegno Soomaalida in Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Warsame la helay reerkiisana uu la joogo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Bismillaahir rahmaanir rahiim. caaw ayaan halkan waxaan u fadhinaa iyadoon la socono in maalintii bisha 30 ay ahayd uu lumay wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Warsame oo ku magac dheer Cabuudi taasoo baafintiisii laga baafiyay TV-ga caalamiga ee Royal TV. haddaba inankan ayaa waxa uu ahaa mid gurigoodii ka maqnaan 2 maalmood oo xiriir ah. inankan iyo arrimihiisii iyo nidaamku ku rumaynba waxaan ka wareysanay Cabdirasaaq Warsame oo ah aabaha dhalay inankan. Cabdirasaaq markuu ugu horeyso ku soo dhawow TV-ga caalamiga ee Royal TV waxaadna warbixin yar naga siisaa inankan sidoo u lumay iyo waxa keenay in uu guriga ka baxo. horta inanka waxa waaye in iska yaro waxa waaye caruur ah markaas waxa waaye inuu banaanka baxo jecel yahay ilmaha daa'iman oo waxa waaye oo marka guriga qurbaha joogan waxa waaye badanaan dhibkooda waxa kamid ah marka daa'iman guri ku jiraashada oo badan marka waxa waaye yarka daa'iman waxa jecel yahay inaas banaanka baxo marka alxamdulillah hadda yarkii oo helni marka dadkiina la jariyay kulli Royal TV dadkii oo marka baafinta waxa kulli oo marka ka qayb qaatay kulli waa mahadsiin yarkii asagan oo marka oo 3 maalmood adii hal maalmood iyo hal haween ilaa maalmood guri ku hay asagan waa mahadsiin asagan. inankan 2 maalmood ayuu gurigooda ka maqnaa. labadaas maalmood xagee ku sugnaa? yarkan waxa aada akalni asku sugnaa yar Soomaali ahay Cali Xamuud Roble oo liira oo cala sabaaq ku magac dheer marka yarkaas ahay marka alxamdulillah asagan aad u mahadsiyaa marka dadkii oo ummadii badan aan la jarisay oo aan la jarisay kulligeed waa mahadsiyaa. haddaba 2 maalmood ayuu guriga ka maqnaa. shucuurtaada waa mid ceen ka ahayd iyadoo wiilkaaga uu ka maqnaa isla markaasna waxaad warbixin yar naga siisaa shucuurta hooyadii sidee ahayd? wallahi horta qof oo nool oo ka baxay marka inaad ka quusato marka waxa waaye waa dhib badan tahay aad iyo aad marka hooyadiisa waa tacbaan ay noqoto labadii maalmood oo damba jariska da marka waa u tabarwaysay marka waxaa leeyahay dadka oo ilmaha afiiriyaan si fiican oo fiiriyaan albaabada ilmaha dhumataankooda waa bati waqtiyaalaha damba aad iyo aad marka waxa waaye ayaamahan marka aad u takoorsaneen aad iyo aad haddaba maadaama 2 maalmood uu maqnaa haatan aad yani isaga dabeecadiis aad la socotaan haddaba maxaa idin qorsheysan si inankan yani mar labaad uusan u dhumin maxaad ugu talagasheen? والله حافظتان زيادة مركات كدبة وبطلقلنا مركا فريالك أو مفاتيح ده أو مركا أو الباودة مركا إن أو مركا أقبينه ماله وحقلنه مركا هويدا يا أب كلا قاعد مركا إنه مفتاح يا حسن أو يجورجا أي جلا أي فران نكب حي إنك يسوق جلاي. haddaba waxaa muddooyinkan batay dhumitaanka ay dhumayaan caruurta Soomaaliyeed maxaad ugu baaqaysaa hooyooyinka Soomaaliyeed? hooyooyinka Soomaaliyeed waxa uu baaqaa marka in ilmaha si fiican ay u fiiriyaan oo aad ay ugu dadaalaan marka dhumitaanka waa batay meesha waxa waaye meel qurba ah oo aad u dhib badan marka canugii ka baxo helitaankiisa marka aad u dhib badan marka hooyooyinka Soomaalida iyo aabiyaalku waxa leeyahay in ilmahooda oo si fiican ay u ilaashadaan ay xafidaan aad iyo aad marka waxa waaye dadaal badan inay ka geystaan ciyaalka xaqooda. haddaanu bahda TV-ga caalamiga Royal TV muddooyinkan dambe waxaana soo gaaraya warar lagu baadgoobayo caruur Soomaaliyeed oo luntay marka taas waxaa keeni karta hooyooyinka Soomaaliyeed oo culeys iska saarin sidii ay caruurtooda u ilaashan lahaayeen. isla markaas waxaan la soconaa in muddooyinkan dambe in caruurta inta guriga lagu xiro hooyooyinka shaqo ka aadaan oo guryo badan oo Soomaali ee degayn ee wadankan ay ku gubteen marka waxaan ugu baaqaynaa hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabayaalka naftirkoodaba in caruurta
caruurta Soomaaliyeed aan la dayactirin oo la ilaashado ha noqdeen caruurta dhumaysa ama caruurta inta guryaha loogu tago guryaha isku gubaya mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqaynaa Soomaalida ku dhaqan wadamada dibadaha gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Jid oo ay badatay in guryo badan ay ku gubtaan oo caruur badan ay degan yihiin Soomaali ah isla markaasna ay dhumaan muddooyinkan dambe caruur badan ugu dambeyntii waxaad tahay aabaha dhalay Cabdiraxmaan Mr. Cabdirasaaq Warsame yaad halkan ugu mahad celinaysaa waxa uu mahad celinaa dadka oo ka qayb qaatay canuga helitaankiisa iyo dadka xafidi kisi waxa asla joogay kulli dadka ila jari Royal TV oo marka aygan aad iyo aad oo waxa qaateen baafinta marka oo yarka dadkaas oo dhan uu mahad celinaa kulli Cabdirasaaq waad mahadsantahay shukran